abwaan baa ku dhalay abwaan caanaho inaan aabahay ka dhaxlo murtiday wax walba odaga buug barigo qoray xamar si lagu soo dhaweeyay si cajiib ah afdhaab isoo hada afdhaab iyo ma sha Allah anu kuwan qoray miyaad ogtahay marka adigu maxaa nafiyahay cagahaaga duwo baan u sameeyay dumarka la iska kufsanay Puntland isha muruq ma ka galay ma la yaabtay erayada baan u sameeyay la saacad hees la dhaho isha muruq ma ka galay ma la yaabtay erayada maxay tahay suuganta noocaas soo reerka magac lahaa inuu ma raacin saaqi reerka magac lahaa fahano maxay soo ugu raacay reerka annaguna wanaga garow iska hadnay ku xumayn ma cid loo raacday inagu meena hayn dad taariikh loo maxaa taariikh laamiga meel walba lagu kasbeenayo nagu tan iska duruuf iska dhacday raggeena hilib iyo qaad baa loo qaaday salawaad ragga soo ka midtiin baantii hore marka la maqlo darwiish laanya marka la maqlo sigis baa la gelin jiray laga carari jiray Allah fardaha dirigax adiga saarta mas'uuliyadda ka cararay adiga leeyahay tama yaanu waati dhulbaanta caadi ah daarka raacayaan adiga ku jira jiilka nimanka ku jirta jiilka Facebook iyo waxaas rawaadiska jira Facebook iyo faaqda waxaan ku sugayaa Faisal Falaalib waxaas waxa la leeyahay dhalinyarada lagu jeediyay qarniyada soo socda waxa rabaa dhalinyarada ma jabhadu ma soo gaadhay hotel xamdi hore wallahi qurigay ka qaadanaya hadda wallahi hadda laakiin ku biira hada suginta soo gaadhay man Facebook waxa soo dhigay nin walba maamul goboleedkiisa committee ka bixiyay qof walba xagee ka soo jeedaa Jubaland dhuhu wuxuu xagee ka soo jeedaa Puntland ku yar la socon waxaan ku qorno garan meeno xagee la horta ka soo jeedaa waxa madad baska Somaliland Puntland diidi karto meena ka sarreyn way khalkhalan sameel ku qoraan bi garan weyn horta xagee ka soo jeednay dib isku weydiiyeen wala fikrad kala qaadan karto meena maamul goboleed la sameeyo dalka wala kala qaybin maamul goboleed maxaa tahay ba sidii maamul waxa la yiri musabix xudaada xagga iyo xamaro mu aadinay maamulka ka wada hadlano maamul goboleed ban qaadanaya bil Soomaaliya maamul goboleed 30 sano dala dhacaynay waxaan maxaa kugu bariijiyay maamul goboleedada waxaan dalku inuu hal unit noqdo oo salaxayahaas waxay galeen maalintan siyaasadda ka fikiray iyo dhulbahanta horta maxaa u dan ah maalintan ka soo istaagay soodiga dadka ku dayanaya maxaa dadka kuwa ku dayda cid maamul goboleedada waxaan keenay magaranaysaa cid ahay taariikhda aan markaas may waxay Abdullahi Yusuf Soomaa reerkan garow degahay Abdullahi Yusuf Axmed Soomaa iyaguna siyaasad gaar ah ka lahaayeen waxa rabeen kursiga Soomaaliya ku qabsada maalintii Abdullahi Yusuf Axmed soo baxay Ilaahay u naxariistay ayeeday aabe oo reer mahada isku qolo ahaayeen مشحرات يدربانك إلى تانجي قصة يدربان تلهم بقولي يسكوي مية صاروخ كذا عيا تغيرات بكل حاجة محو تغيرات معها فين حلمي سنقر هين ما كنت عارف هذا وين رعت ما كنت رعت طريقة مرة هنا قبل سو سيرو بهاي بري بوحوها سكوا قروا تسود وفاخ ذا مو دقنين يسوق سوريات بدنا سنتي فنانين تيذا كالحين توجيه حنتي بوها صي لما حول قرا لي فنانين تيذا كالحين توحات كوضا سوري كالح فنانك وكالح ما قد شلبي كنت كنا قف إنت هرستي وكهر هيسيا مين كان حين وكان مشاريع لكن وش قد يرميها شكلها مركز نجستان فانكي كبح ونيجي فنان كاموت صرت هيساق ما نجست ما نجس وحكم إذا ده هيساق صار الله شذا هذه شاي لابت شيفا إلى لازم ما يلب بيجي مو قليل لابت إذا مو دقن سيد الليل أروريات أما الله ما أبحلو الله سكي يكوي العين نيدي إذا ما لولين ترى نقول ما بلحات كي جحوق يلا فايق جوبا يلح سيحن ويا بل إن هردة اللي ذكر لابت يقوى ووف كور waxaas ku jira maxaa farsa waxaas abwaan baabada adu maxarib dhulkeena nimcaha fadhida waxa saartamiya ma rabo waxa rabaa inaan nootin cabqariyo mafakir oo dadka hogaamiye ay maxaad kula tan lahayd baanta maanta maxaad kula tan lahayd kuwii hore sharaf bay lahaayeen baanta lama taliyeen baanta waayo lama taliyeen baanta waxa la tan la Soomaali iyo muslimiinta reer soo sanaag yacayn maxaad kula tan laysaa dadku markuu dhamaantii wada tashado wada hagaagan buu hagaag kara laakiin hadii aan dalku hagaagsan baanta ku heshin way khaatamo meel kasta lagu heshin waa wallahi billah meel kasta lagu heshiisku ma aha heesban soo xasuusta dhahda marka dhinac ka daba dhanka kala banaano maxaa ka maqan kuwa hadda isku qaylinaya halkan isku dhaxaganaya le aanu burbur iyo reer hebel iyo inta ku yilay Soomaali waxa arteen isku wada taal tahay gobol ka xoog badan ma jiro yani idinka oo leedin gelin wax uqdada iyo gobolkina gobolada ka hooseeya ma aha dalka dhan baa isla dumay dalka dhan waa isku taal gobol walba waxaad ogaanaysaa marka in yaro doorasho ama wax yaro issue ku soo kordhaa qofan travel degree iyo travel master wadan ma jiro hadana 4.5 fi qabyaalad ba shaqada la isku geenaya marka waska dawlad laan la isgeeyay ma yahay shaqada horta la abuurso ma aha waxaana sheegaysaan Ingiriis laga sheegay dadkan Afrikaanka keega yar bay tiri anigu mid ma kaaga sheekaya taariikh dhabo dhacday hadii keeg weynaan lahaa meesha lagu hayay weynaan lahaa wallahi taariikh horta dhigaysadii taariikh dhabo dhacday reality naag cadaana oo resolve problems of Africa loo soo diray xalinta khilaafaadka